dunidaaba kala dhiman dar allay qabyo u tahay dadaal oo ka sii badi waa bilowga qisada jacayl oo aad muuqaalkan ku daawan doontaan hadduu abiidmo haddaba kuu soo dhowaada gacmo furan channelka rashka turlof qisadan inta ay socotay waxaa ugu magac darnay nasiibka ayaa kaa heeliyey ee iska ilow waxaana qisadan xanuunka badan ay ku dhacday gabar magaceeda ay noogu sheegtay Sihaam aniga daadeeda waa 22 sano jir waxaan ku noolahay gudaha magaalada Boorama waxaana weli ahay arday dhigata jaamacad ku yaala magaalada Boorama qiso igu dhacday welina qalbiga iga danqisa ayaan go'aansaday in bulshada aan la wadaago si ugu yaraan dhibaatada aan dareemayo iga yaraato ayay tiri waxaan muddo isgaranaynay wiil aan jeclahay in halka magaciisa ku soo bandhigana ma doonayo waxaan ahay dad jacayl wadaaga laakiinse marka xaqiiqda laga hadlo aniga aad baan u jeclaa laakiin dhankiisa Allah ayaa garanaya dad badan ayaa xitaa la yaabay heerka uu gaarsiisan yahay jacaylka aan u hayo wiilkan noloshaydiina waxay ahayd mid aad iyo aad ugu faraxsan mar walba oo aan la joogana ama aan la hadlana farxad ayaan dareemi jiray aniga waxa ay dhalay mid ka mid ah ganacsatada ugu magaca dheer ee magaalada Boorama ama guud ahaan deegaanada Somaliland wiilkan aan jeclaa waxaan ogaaday in uusan igu soo raacin jacayl laakiinse hantida waalidkay ayuu doonayay wax walba oo uu magaalada ka jeclaado waan siin jiray ilaa nafteedii ayaa jeclayd laakiin isaga ma ahayn mid dhaqaalahaya aniga oo taa eegaya ayaa maalin walba nolosha meeshaasi ka fiirin jiray balse waxaa dhacday in maalmaha ka mid ah uu ninkii isbedelo waxa uu la saaxiibay inan kale oo dhaqaale haysata weliba iyada oo ganacsato ah waxaana sidoo kale inanta ay la socotay in xiriir jacayl uu naga dhaxeeyo wiilkan waxayna fartay inuu iga haro galab khamiis ah oo aan ballansaneen ayuu xaafadda igu yimid iina sheegay in aanu wax jacayl ah ii qabin isla markaana aanu doonayn in mar kale uu ii arko aad baan u qaraacmay waxaana dareemay dhibaato badan oo qalbigayga soo wajahday waan ciishooday ku dhowaad bil waxaan ahaa bukaan socoto dadaal badan waan bixiyey asxaabtaydii iyo qaar ka mid ah ehelkaygii baan u diray laakiinse waxa uu u soo sheegay in aanu jeclayn balse uu ahaa keliya nin jaanisgaad ah ama qarash raadisa helayna mid aniga iga wanaagsan muddo sanad kadib Sihaam waxa ay sheegtay in aysan ka maarmeen wiilkan oo ay jeceshahay ileen ruux wax jacayl ma ka maarmi karayo ruuxa kale uu jecel yahay Sihaam mar kale waxa ay damacday in ay baadigoob ay samayso waxa ay ku qaadatay muddo 5 bilood ah waa ay baadigoobtay muddo ayna baadigoobaysay wiilkay jeclayd ayaa maalmaha ka mid ah waxay is arkeen Sihaam saaxiibadeeda gabartaas waxaa lagu magacaabaa Sumaya iyo weliba waxa wada sheekaystay Saacid oo ahaa midka ay Sihaam aad u jecleed Sumaya waxay tiri Saacid aboowe iyo waran xaaladaada Saacid waa uu ka jawaabay waxa uu yiri waan ku ladanahay ii warana baayisay tahay Sumaya ayaa ugu jawaabtay waxa ay tiri qaladka aad samaysay ma garanaysaa Saacid ayaa waxa ugu jawaabay maxay tahay qaladka aan sameeyay waxa ay ugu jawaabtay Sumaya haddii qalbiga qof aad ka dhaawacdo qaladkaasi adiga ayaa lagu qorayaa waad ogtahay soo maaha Saacid Sumaya waxay sidoo kale ay sheegtay in si degdeg ah loogu baahan yahay ilaa iminkana Sihaam ay ku baahan tahay fadlan waxaan ka doonayaa qof wax jeclaaday ma sahlana waa ku bariyaa aboowe gabartaasi way ku jeceshahay mar kastana adiga ayay ka fikirtaa hal sano ayaa ka soo wareegatay labadiina inaad kala irdhowdaan ama aad kala tagtaan run ahaantii marka aad kala tegayseenna
adiga ayaa go'aansaday waa ku bariyaa wax kastoo ha nagu qaadato waxaad jeclaan lahaa in aad isku soo laabataan oo aad ishanataan saacid waxa uu yidhi maya aniga weligay maanan jeclaan Sihaam mar kasta danteeda ayaa ku oofsan jiray oo lacag badan ayaa ka qaadan jiray waxaana helay mid lacag ka sii badanaysiisa laakiin iminkan waxaan doonayaa in aan Sihaam u laabto sababta ay tahay inantii lacagtii siin jirtay ayaa iga tagtay iminkan waan u baahanahay Sumaya waa ay naxday waxay tiri weliga maadan jeclaan miyaa Sihaam qaladkan aad gelayso alle ayaa kaa jaasayn doona laakiin mar kasto waxaa habboon in aad qofka aad jeceshahay aad qanciso lacag waxa ay tarayso ma lahan waxaa laga yaabaa gabadha kale lacagta ay ku siin jirtay Sihaam in ka badan inay ku siiso kaliya waxaan kaa doonayaa inaad taleefanka haddii qabato Sihaam way ku soo wacaysaa kaliya qalbiga u deji oo waxaa laga doonayaa in aad qalbigeeda aad u dejiso adduunka lama helo qof si daacada ku jecel laakiin waxa habboon in aad kaliya tixgeliso qofka hadduu ku jecel yahay xataa haddii aadan adiga jecelayn waxaan ku leeyahay waan kaa sii tegayaa khayr badan ayay Sumaya ku tiri muddo 3 maalin kadib ayuu taleefanka shitay Saacid taleefanka markaa uu shitay durbadiiba waxaa soo wacday inanta lagu magacaabo Sihaam oo ah qofka kaliya jacaylka iyo weliba hadda farxadda u baahan waa ay wacday waxa ay tiri aboowe ii waransee tahay waxaa laga yaabaa in aadan aqoon i lahayn laakiin mar kale barasho wanaagsan magacaygu waa Sihaam Saacid waxa uu yidhi aqoon dheeraad ah ayaan kuu leeyahay run ahaantii waxaan ahay qof jacayl aan waxba ka garanayn laakiin waxaan isku dayayaa iminkan hadda jacaylka aad i tusinayso ama jacaylka aad i bartay in aniga sidoo kale ixtiraamkiisa aan ku siiyo ayuu yidhi Saacid qalbiga ayaa u qaboobay waxa ay tiri Saacid marunba qalbiga miyaad ii dhisaysaa hadda ka hor ayaad iga tagtay laakiin iminkan haddii aad iga tagto ogsoonow waan isdilayaa la'aantaada ma noolan karo xaqiiqdii Saacid waan ku bariyaa niyadda aad ii dhisayso iga jooji kaliya waxaan u baahanahay mar kastoo inaad i farxad geliso run ahaantii waxaa tahay qofka kaliya aan jeclahay run ahaantii waxaa tahay qofka qalbigayga uu ku nasto run ahaantii waxaan kuu qadariyaa sida aan faamilkayga aan u qadariyo waan ku bariyaa hayga tegin aniga ayaa ku baahan xataa haddaadan adiga ii baahnayn tixgelin kaliya ayaan kaa rabaa Saacid waa uu yara naxay waxa uu is yidhi alla leh inantan waa ay ku jeceshahay waana qof si daacada ku jecel waayahay ayuu yidhi Saacid Sihaam oo aad u faraxsan ayaa waxay tiri waxaan rabaa weligeygii niyadda maadan ii dhisin laakiin waxaan niyadda ii dhisi karayaa kaliya hadal yar oo aad i tiraahdo waan ku bariyaa weligay wax fiican maadan i dhihin waxaan u baahanahay hal daqiiqo qura inaad i tiraahdo Sihaam waa beebigaaga Saacid nafteyda iyo naftaada isku mid ayaa ii tahay macaan kaliya intaas ma dhihi kartaa ayay Sihaam tiri Saacid ayaa ugu jawaabay waxa uu yidhi intaas in ka badan ayaan ku siinayaa waxaan ku leeyahay bal ka waran haddii aan isguursano Sihaam waa ay naxday waxay tiri guur Saacid miyaad igu dheelaysaa waa ku bariyaa qalbiga miyaad iga sii jabinaysaa jacayl ayaad isin laadahay haddii aad guur isoo bandhiganayso aniga diyaar ayaan u ahay haddaaba labadeenna hal meel aan ku wada noolaanayno diyaar ayaan u ahay Sihaam waa ay faraxday waxaana ay tiri run ahaantii farxadda qof kasta waa uu u baahan yahay Saacid waxa uu yidhi laakiin abaayo waxaan wataa hal shuruud halku shuruud aan wato waxa ay tahay in aan aniga lacagta guurka aanan awoodin
keliya aan diyaar u ahay inaan ku guursado. Waxba ma haysto, laakiin hantida guud ee gurigeena adiga ayaa laga rabaa. Siham waxay tiri, wax kasta oo dunida yaalla waan kuu samaynayaa. Waxay rabto ha igu qaadato. Keliya waxaan rabaa mustaqbalkeena inuu noqdo mid aad u qurux badan. Waayahay ayuu yidhi Saacid. Muddo 3 bilood ah ayay markaasi jacaylkooda wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan. Balse iminkan maxaa dhici doona? Maalin Arbaco ah ayaa Siham waxaa u soo dhacday fariin. Waxayna u qornay sida tan: Assalaamu calaykum Siham, waa jacaylkaaga Saacid. Guurkeena maalmo ayaa ka dhiman. Waxaana ceeba in aniga qarashka aan gacanta ku hayn. Waxaan doonayaa si ciddaada ay u farxaan. Waxaan kaa rabaa inaad lacag aad isiiso si aan ciddaada aan ugu soo doonto lacagtaasi. Weliba si degdeg ayaan ugu baahanahay. Lacagta qarashka inta ku baxaya guurka adiga ayaa garan kara. Waxaan kaa rabaa akoonkaasi in aad ii soo dhigto, weliba si degdeg ah. Siham waa ay istaagtay, waa ay fadhiisatay. Mar kale waa ay istaagtay, waa ay fadhiisatay. Taleefanka ayay laabta gelisay. Sawirkiisa ayaa shaashadda u saarnaa. Waa ayna dhunkatay. Waxayna tiri, kan ayaa jacaylkaa ah. Waaw, lacag waxa ay tarayso ma lahan. Siham waxa ay akoonkiisa Saacid ugu shubtay lacag gaaraysa $10,000 Maraykanka ah. Lacagtaasi waa ay u soo dhacday Saacid. Waxaa la isku diyaariyey xilliga guurka. Saacid waxa uu yidhi, 10,000 ayaa akoonkayga ku jirta. Waxaan rabaa inaad tahriibo. Weliba si degdeg ah ayaan dalka ugu baxayaa. Lacagta 10,000 ee loogu talagalay inay isguursadaan Saacid iyo weliba Siham ayaa wuxuu u qorshaystay inuu ka tahriibo. Saacid waa u baxay. Asxaabtiisa ayuu raacay. Asagoo maraya dalka Liibiya ayaa waxaa qabsaday magafe. Saacid 10,000 waa laga qaatay, waana la dilay. Saacid muddo 3 bilood ah ayay taleefanka ka wacaysay Siham. Yacni ma ogeen in uu geeriyooday Saacid. 3 bilood kadib, Sumaya waxa ay samaysay in ay baadigoobto qoyska uu ka soo jeeday Saacid. Waxa ayna u tagtay Saacid adeerkiisa. Waxaa loo sheegay in Saacid 3 bilood uu duugan yahay. Waxaana dilay kooxda magafe oo Liibiya ayaa lagu dilay, ayuu u sheegay Saacid adeerkiisa Siham. Siham waa ay suuxday. Waxaa la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla gudaha magaalada Boorama. Muddo 3 bilood ah ayay jiiftay. Ilaa iminkan waxa ay dareemaysaa xanuunka jacaylka ay u qaaday nolosheedii Saacid.